injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucido qaybo ka mid ah warfidiyaanka kula hadlayay hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay cadeeyay mowqifka xisbigooda ku aadan qalaasaha xilligan ka taagan qaybo badan oo ka mid ah wadamada Khaliijul Carab waxaanu si weyn u soo dhaweeyay go'aanka xukuumaddu ka qaadatay ee ku taageertay xulafada uu hogaaminayay Sacuudigu. inagu dawladdu waxay taageertay xulafada taageertay marka ay ka noqoto oo wadamo isqabsadaan aad saaxiib tihiin isku diin tihiin waxa la eegayaa macaamil leedihiin yaa ku leedihiin dano badan inagu ogtiina Sacuudiga ilaa boqor Sacuud ka aasaasay dawladda Sacuudiga Arabiya dadkeena wala shaqeynay ragla aasaasay mamlakada qadisiyay weyn ku jirtay Aramco shirkadda ugu weyn ee soo saartay shidaalka soo saartay Sacuudiga ragii u horeeyay Soomaaliland bay hay'ad ka shaqeeyay xiriir dheer baan leenahay ilaa 5,000 oo waxa jira reer Soomaaliland oo Sacuudiga joogta laakiin kama faa'iidsan Khaliijka oo ogtaan qolada Imaaraadka oo dadka maanta inuu badan ay investmentka iyo base-ka aynu yeelanay way marka dadka saaxiibka ay isqabsadaan in adeerkii saaxiibka raacaysa imaka hawadayna waa xidhnay laakiin awoodan ku xidhna ma leh oo dama haysano waxa naga boqo laakiin dhaqsaan u helina insha Allah taala in awoodayna aynu gacanta ku arno diyaaradu aanay iska kaysan dulmarin aanay iska soo dulmarin marka taas aan ku hambaleynayaa dawladda mowqif aan bay iska taagtay waxa weeye either with us or against us bay marsa brigis bush oo kale ay arrintu taagan tahay marka coalition ayaynu raacnay وسياسة waxaan arkaa fiican oo ku dhiiraya waxaan ku xumeeyay in xusbigii kale ay isku moofan noqdeen Soomaaliya dawladda Soomaaliya beenta ah ee jirin Waraabe madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xubnaha komishanka doorashooyinka ku bogaadiyay ay midda xilliga ay doorashada u qoondeeyeen aanu soo dhaweynayaa go'aanka magaranayay madaxweynihii iyo komishankii ay noo cayimeen maalintii doorasho dhacaysay إلى ما قبل سبحانه وتعالى دور صف على نور عضو والنبذ نور عضو الخير قبتنا نور صبح سبحانه وتعالى وإن بدن با ميديا هيو دad inaga mid ay adduunka marinayeen doorashadu dib u dhacaysa dawladdu ka xalaal maaha laakiin waxa maanta cadaatay inay doorashadii insha Allah taala komishanka xilkiisa fiican u qabsaday هذا كوميشن وحو قبته وا تكنيكال لكن وان بارنا ان شاء الله تعالى awoodooda iyo go'aan qaadashadooda aynu kala saari doonaan waxa si weyn uga deeriyay marxaladda xilligan ay ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah shacbiga reer Soomaaliland ee u gudbay xuduudka Itoobiya isagoona tilmaamay inay halkaasi kala kulmaan dhibaatooyin u baahan in xukuumaddu wax ka qabato waa u dakeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro haddana waxa uu intii heli karaysa haddana waxa uu baahdaan dadka buka haddana waxa uu baahdaan magaranaysaa inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan India iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaranaysaa Ethiopia dadkeena waa lagu dhibaa waa lagu humiliate gareeyaa dumarkeena u badan dad buka wada وان كلا هذا ما له سفيرك إثيوبيا لكن ولي أبيوس كو صعدا وحوي دولة إثيوبيا أي حدودها كمسؤولة فدرال جفرمنت ما كانت كتر وديد توجه عليه وحب باسبور كاي دوكيمنت كاي دولة فدرال هالكاسي عرض كل ما عطا الدون كده لكن وحوي كلك الشناد عسكري يريرو اللي كل حاليا بوليسية أو سكول غيره oo isku jira magaranaysaa checkpointoodu isku jira maxaa oran kala 5 kilometer ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya iyo murid gareeya oo waxa say u galaan hadaa aragtaan iga wadaan yahuud u galin Falastiiniinta checkpointkooda arintaas waxaan doonayaa dawladda inay gacan ku qabato waxa la mid ah Djibouti waxaad ku xidhan yahay ilaa maalintii la qarxiyay
Djibouti ilaa maanta dadkeena iyana halka waa lagu dhibaa kuwa soo gelaya waa lagu dhibaa Soomaaliland dad masaakiin ah oo reer Soomaaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30 xaga keen soo xaga baxay masaakiin te inaguna uma roonin mana ilaalino dawladii kale markay arkaan dadkaas oo gelisay iyaguna u geliyaan waraabe waxa uu gunaanadkii bogaadiyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka talaabadii ay ku xakameeyeen shuban biyoodkii qaybo badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliland ka dilaacay isaguna Ilaahay uga rajay shacbiga reer Soomaaliland in guul iyo baraare ay ku gaadhaan rabadaanteeda Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.